aan ku qabannay oon xorta ka qaadnay inaan xornimada inaan dillana waa naga xaaraan laakiin intii aan dhalay ee naftiga waxa yaan maanta laga badin kaftanka intaa ka bacdi waxaan annagu halkan ku haynaa walaalkayo Xuseen Cabdi ah aad oon ku qabannay xabad isagoo oo dilaya la isdilayo oo maydku yaallo baan qabannay wax nabadgeliyadiisana waan sugnay maanta annagu nabixi ku odhan mayno haraad u bixin daana ku odhan mayno haraanad u daynin laakiin annagu waxaan ballan qaadnay waxaan ballan qaadnay kaa haddaad toogatay inaan isaga nabadgelinoo keenno shadaa ku kale haddaad sidii kii kale u disho annagu waxaan ballan qaadnay inaanan kaa Xuseen Cabdi marnana aan dilin haddaad soo dooni weydana oo maanta dawlad baydna karamis dhex joogno inaan halkaa nimaadno Xuseen hooyo soco oo nagu soo duul adigoo xor aan idhaahno iyay ballantayadu tahay ahayd imikana waxaan leenahay waa kan walaalkayo Xuseen Cabdi waan dhiibaynaa dawladuna ha ogaato ay nala qabto isagoo xora Xuseen Cabdi waa xor dadweynaha waxaan u sheegaynaa inuu Xuseen Cabdi xor yahay inuu fiqaadanna xor ku ahaa inuu maantana xor yahay aan dadweynaha aanan u dhiibnay magaca ciise maanta oo dhiibna maha shalay waxaan ka soo qabannay magaciisi baan in oday noogu yimid godcad yuusuf baan u dhiibnay maragayagii fuurlabu haysna waa ninkii labaad fuurlabu ahaa yuusuf baana janaka aanu keenay ciidamada yuusuf baana nooga markhaati ah waxaana ballan qaadaynaa inaanan annagu diinta muslimka aan rumayno oonan dilin maxbuus gacantayada aan ku qabannay oon xorta ka qaadnay inaan xornimada inaan dillana waa naga xaaraan maantana hala naga gudoomo maanta waxaan halkan kula kala wareegaynaa labadii maxbuus ee ku kala qabsanay dagaaladii u dambeysay ee foolka ah taasoon si nabadgelyo ah odayaasha cuqaasha xildhibaanada madaxda qaranka ee ciidanada ay dhammaan markhaati ka yihiin dhiigga muslimkana sidiisa waa xaaraan laakiin khaladku waa dhacaan waa laga soo noqdaa waxaan leeyahay dhammaantiin waa salaamatihiin mar koobaad iyo mar labaad maxbuuskii khadar waa kan uu wanaagsan yahay Xuseen Cabdina waa kan insha Allah waa la kala wareegi doonaa aad baan ugu faraxsanahay in Xuseen Cabdi iyo Khadar Axmed aan maanta kula kala wareegno ayadoo aan maanta isla soo kaashanay xarunta ciidanka qaranka mid kayaba aan dhanka keenay way wanaagsan tahay sharaf bay noo tahay inamadaana nin walba dee nabadgelyaa lagu hayey wuu qurux badan yahay mid walba imikana beelahoogii bay u kala tegayaan markaa isagoo qurux badan alxamdulilaah nabadgelyo noogu dhacday wixii dambe ee dhacana inuuna wax dambeba ilaahay rida nabad halka sii amba qaadanto ayaa ilaahay baryaynaa ogtahay ciddii waxaan abuuraysayna ilaahay meel kale ha u waarido xildhibaan Saciid oon ka wada shaqaynaynay iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Baki oon ka wada shaqaynaynay sidii maxaabiista aan isku keeni lahayn inuu ilaahay ka dhaliyo khayr ayaan rajaynaynaa waxaan intaa ku darin kelmad kaftana aniga de intii abtiganimada kulle waxaan malaynayaa in kaftanka lagaga badinayo laakiin intii aan dhalay ee abtiga waxa yaan maanta lagaga badin kaftanka wixii dambeena kala galanaysa maan uga shaqaynaynaa ilaahay nabadna ha inagu huwaariyo